السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي وانا سيف دباتي سوي دنتي channel ka dadka cusub tahay subscribe saar hadda tan loo soo masan tahay waad karaal noolisiin xogaa yar baan hergebsanahay qiyaar badan baan ugu soo celisay switch kon sidee loo sameystaa switch kon sidee lacagta loo baxa are awa laba tilaabo oo martaan qaadi doona waxay tahay sida loo sameysto switch coin tilaabada labaad oo aan qaadi doona waxay tahay sida lacagta ku jirto loo wala baxo insha Allah tilaabo bitilaabo ila soco horta marka hore tahay waan maartay waxa ka soo degsan kartaa ku coin ama aad keeli kartaa app store ina keen app store xogaa yar waar dibsana waad kala noqonaysiin app store kama app store kuma timaadid inta wax ku qoraysa ku coin wax weyn ma ahan alright aniga marka haduu degsan yahay adiga haduu ku degsanaysa soo degso marka ku coin marka soo degso insha Allah ablo soo dhe isla markaan maartay ku coin kan tilaabada ugu horreeyay qaadana waxay tahay sida loo sameysto ku coin sida loo sameysto si yar oo fudud easy waxa gelinaysa Gmail kaaga hadda aniga sign up ma dhigi karo because of waxaan lahayn passport-kii waxaad gelinaysaa Gmail kaaga iyo waxaad gelinaysaa magacaaga wax weyn maahan marka sidaas aad markaa ku sameysatay waad soo gelaysaa marka sidaas aad ku sameysaysaa switch coin oo waxa weeye sidaas uu kugu sameeyay yahay Gmail iyo passport aad gelinaysaa isla markaasna uu kugu sameeyay yahay tilaabada labaad oo aan qaadi doonaa waxay tahay waa withdraw tilaabada ugu adag weey qof walbana maartay in la soo degtaa Gmail ha magacaaga gelida wax yar oo easy balse tilaabada dhalinyarta ay ku adkaatay waxay tahay tilaabada withdraw marka aad sameynaysid waa inaad haysataa passport ID travel national ID marka haddaadan intaas midnaysan inta waxaad ka doonaysaa faiz lacagta mid aad rabtid euro hada ka rabtid iyo hada USD hada ka rabtid marka meeshan waad u jeedaa inuu ku qoran tahay mataqaana SSR mataqaana Google verification midaan sidoo kale u jeedaa transaction passport midaan waa u jeedaa ID verification in ay mataqaana ay tahay in neefal ay tahay oo aab la heli karin alright marka sida tilaabo ugu horreeyay qaadana waxay tahay marka ugu horreeyay marka waxa la verification no alright order meeshan waxa ku qoran hadaad martay hadaad English ka taqaanid meeshan waxa ku qoran waad kala loonaysan calaamada iga qabsatay dhulka dhamaa meeshan waxa ku qoran mataqaana haduu yahay ku idmiyo country register of cities marka inta ka doonaysaa magaalada aad joogto kulliba Soomaaliya kuma jirto magaalo un baad martay si gashanaysaa because of meesha awlaadan tusaale ahaan waxaan joogaa leeyahay mataqaana magaalada Kenya horta Soomaaliya inuu ku jirto umaleeyo laakiin Soomaaliya hadii ku jiri lahayd maartay way noo wanaagsanaa lahayd esta tagaya maartay qaybta esta marka Soomaaliya ma ku jirto marka magaalo un baa iska doonana okay meesha waxa gelinaysaa ugu horeeya last name magaca koowaad meesha ugu horeeya waxa gelinaysaa magaca koowaad meesha ugu horeeya waxa gelinaysaa magaca koowaad tusaale ahaan aan isla aragno meesha ugu horeeya waxa geliyay magacayga koowaad Maxamed Nuur qaybtan ku xigto waxa gelinaysaa ID card hadaad haystid passport hadaad haystid waa sidoo kale travel license hadaad haystid waa sidoo kale waad u jeedaa optionada meeshan laga doortay aniga dhamaantood ma haysto because of hadda passport soo sameeyay ma sha Allah passport kaas geli doona marka passport ka waxay doona badanba passport ka iska fiican ID hadaad haystid oo kaasa dadka qaar marka fahmin su'aalahan passport soo doortay inta waxa laga rabaa ID lambarka passport ku qoran hadaad doortid ID card sidoo kale markasta ID lambarka oo meesha ku qoran sidoo kale meesha waa aqbalaysa I have read mataqaana waad mataqaana shuruucda markaas u yaala mataqaana ku coinka waad aqbalaysaa markaas waxa la verification oo markaas sidaas aad martay submit ku leedahay calaamadaas mid hadaan waaga disan tahay marka adiga way soo bixi doontaa insha Allah hadii Ilaahay raali ka noqdo calaamadaas submit way disan tahay laakiin marbay soo muuqdo doontaa insha Allah
cashir marka kasoo sameynayo sidaan maashaas verification maartay koodka aan passport aan u geli doono ama ID waxa markaa haysto waan soo sameyn doonaa maasha kale soo aata complete oo maartay inaan dhameystiray transaction passport waxa maaha okay marka tilaabadan transaction passport-ka waxa weeye ayadana waxa sameynaysaa Gmail-ka lagu dirayaa marka ayadana taan saas ku xaqijinaysa midaan kale taa ku soo hartay marka oo ah midaan kale oo ah mataqaanaa haduu ilaahay ku yimid SM or Google verification midaanu haddaadan aqoon lahayn oo ku adkaanaysa kuwaas wax weeye marka hadda inta ku dhufatay tusaale ahaan hadda ku dhufanayso sababta waxa weeye complete hadda artay waxa weeye waa dhamaystirtay verification waxa ku sameynaysa waxa la soo degaysaa haduu ilaahay ku yimid app-kana la soo degaysaa hadda inaad si fiican iska fiirsadas fiican app-kan baa la soo degaysaa marka aad app-kan la soo degsid waxa sameynaysaa ku sheegaya hadda halkan waxa ku jira mataqaanaa inta ku daraysaa enter search keywords inta name-ka waxa ku qoraysaa KuCoin tusaale ahaan KuCoin midaan iska caadi waxa ku falinin your keywords oo dhahay erayo dhahay fahamsan marka aniga uu hore ugu jiray inuu qaado jida ka baqay marka marka aniga waa kan hore ugu jiraa hadda wuxuu isiinayaa wari maashan anta calaamadan oo haysanaysa hadii ku dhumaato mid kale lagu soo bariyo code-kana qaadaysa marka code-kan way verification dhan lagu sheegay code-kan ba maad ku verification gareynaysa isla markaana maartay sidaas aad maartay verification ku sameynaysa code-kaas qaadaysa dabadiisa verification ku sameynaysa marka dhamaantiin waan salaamaya lacagta waxaad kula bixi kartaa steps-ka aan hadda soo barnay oo aan ku sheegayo marka insha Allah dhamaantiin waan salaamaya video inta ku midaan waxaan tagay intaas nabad geliyo waxaan dad ka faa'iiday channel-ka subscribe dhac ku sii sidoo kale like-tan ugu taageer qaybta hoose fikradaada ugu qaybta ku midaan waxaan tagay intaas nabad geliyo